hooyaday waxay dhashay 5 hablo iyo 3 wiil. familka waa famil ballaaran, familkana aniga u weyn. hay ilaahay amarkiisa waxaa dhacday in gabdhaha iga yaryar lasoo doonto oo la guursado. kadib waa la joogay oo mid ku xigtaa la guursaday. hay adiguna soo taagantay. anigina waa soo taaganahay oo guriga aniga u weyn oo 4 iga yaryareed waa la guursaday. adiguna weli waa soo taagantay. anigina weli waa soo taaganahay. acuudu billaahi min ashaytaan. hay marka ma ayda wada eg xoogaa ilkaa ka dheeraayo marka waa la iga cabsaday show. okay adilka dheerayd ilaahay waa abuurta alle wey, abuurta alle. kadib waxaa dhacday 4 gabdhood in la guursaday. hooyada igu dhihi jirtay adig wax ku rabo malahan miya meeshaana soo taagan tahay wax ku guursanayo malahan. adiga markaan kula ekaa 5 ilmaa haystay iyo 10 ilmaa haystay inay igu dhahdo mar keligay guriga intaan gala ayaan isku ooyin jiray. aan dhihi jiray calafka maaniga gacanta ku hayo maanaa waxaas isku keenay oo laygu dhaho meeshaanay taagan tahay wax guursanayo malahan, qumayo waaye balaayadan. markii xoogaa in laygu qayliyo la rabo waxaasaa laygu cayn jiray. hay weli markaa wiil ma isku dayda inaad shukaansatin mise weli shuy kaa yaacaya marka ilkahaaga arka? weligayba nin lama hadlin oo salaamu calaykum aba dhihinba. fuqa ay barrey baa tahay. haa gurigaana joogaa, gurigaana isaga jira. dadka gabdhaha oo baxo oo intay labistaan magaalada aado oo nimanka raadiyo maba ihiba gurigaa iska jiraayo. marka waxaa dhacday in gurigii xoogaa wax badan laigu qaylinayo oo laydhahayo wax rabo malahan meeshaan inoo soo taagan tahay. aniga markii adig kula ekaa 5 ilmaa haystayo xasaan baa ahaayo. marka dambe ilaahay amarkiisa habeenada ka mid ayaa waxaan aaday aroos oo gabar qaraabada ka mid ah igu dhahday waa inaa imaada arooskaas. kadib arooskiiaan tagayoo anigoo gabdhaha ciyaara iyo waxaas aan ku jirino gadaal kursi iska fadhiyo ayaa wiil ii imaaday oo xoogaa asagana wiil yar aheenoo tirada adiga 35-38 meelahaas. kadib wiilkii baa ii imaaday oo wiilkii markuu ii imaaday wuxuu igu dhahay maxaa gabdhaha way ciyaarooyeen adi keligaa waxaanta ku fadhiisay camal igu dhahay. markaasaan ku dhahay ani buuqa iyo ciyaartii waxaas kama helo. gabadhan walaasheeda arooskeeda inaa imaado igu qasabtay moogiye aroosada imaba jeclin. wiilkii meesha isku baranayo wuxuu igu dhahay taleefon lambar ma leedahay oo taleefon lambarkaaga ma isiin kartaa oo waxaas igu dhahay. waana wiilkii kugu horeeyey ee waxaa kugu dhaha? waa ninkii igu horeeyo oo intuu isoo hor istaago waxaas igu dhaho. kadib waxaan ku dhahay ani taleefon ma wati laakiin waxaan ku siinayaa lambarka hooyadaya. taleefon yaryariiska markuu taleefon ka socday ahayd. taleefon yariis oo guriga yaalaan ku siinaa oo taleefonka lambarkiisa iyo hooyadayaan soo siiyey. kadib arooskaas oo dhammaaday gurigaan iska imaaday oo maalin markay kasoo wareegatay maalinta kale ninkii a isoo wacay oo hooyaday waxay igu dhahday qof baa ku rabay taleefonkan hoo. taleefonkiiaan ka qaaday wiilkii waa wiilkii aad soo barateen arooska isku soo barateen see tahay caafimaadkaaga xaaladahaaga waa iswareysanay waa fiicanahay. kadib wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan kula kulmo oo kula hadlo oo saa u aragtaa. yani marka waxaan ku dhahay inaa ila hadashid maa rabtaa? haa. markaas wuxuu igu dhahay gurigiina waan ka xishoonayaa oo hooyada iyo aabahaaga iyo soo ma joogaan? haa way joogaan hooyaday aad meesha waa ka xishoonayaa haddii aan ku kulanno ka waran meel banaanka oo galabihii lasoo aado meelahaas aan ku kulanno. okay baan ku dhahay wiilkii meeshaan ku balannay meeshaan ku kulannay. marka ma faraxsantahay oo wiilkii kugu horeeyay kula kulmay maxaa isweydiinaysaa marka? waxaa isweydiinayaa ninkan wax yar markuu kula sheekaysto isagana miyuu kaa tegi doonaa mise muxuu ku dhihi doonaa? niyadayda ma siinin adiga waxaa isleeyahay iskala hadal inkas laga yaabo inuu nasiibkaada noqdo laakiin niyad badan oo farxad badan oo uma hayo oo waxaan isleeyahay yaa og muxuu noqon doono. kadib gurigaa ka baxayo ninkii la kulmay wuxuu igu dhahay wallahi markaan ku arkay waa kaa helay oo ani marka maba aaminsanin ninaaba intuu kaa helo oo ku jeclaado oo ku guursanayo oo xoogaa niyadaas ma hayo. waxaas leeyahay showkan asagan inuu kugu ciyaaro muu rabaa inuu qofka markuu asaga waxaas idhahay aniga waxaanba ka fikiraaba negative ama kasii fikiraaba. markaasuu igu dhahay waa kaa helay markaan ku arkay runtii inaan wax kugu darsada gabar deganaa tahay oo dabeecad leh oo saanayso. markaasaan ku dhahay okay dhib malahan haddii aan isla hadalno isla sheekaysano isla sheekaysan karna. cabaaraa wada sheekaysanay adiba ku dhawaad 2 bilood camal isla hadlayn. marka dambe wuxuu ii keenay mobile yariis oo tooshla la dhihi jiray buu ii keenayo igu dhahay mobilka hooyada mar walba kaama soo wici karo kan hayso oo kanaan kaa soo waca. mobilkiiaan qabsaday wiilkii habeen waa isoo wacaa subax waa isoo wacaa wuxuu ii sheegay inuu horey usoo guursaday oo hadday u yar tahay 8 ilmo uu haysto. 8 caruur haystaaba? 8 caruur ah ayuu haystaa. adkaatay
adkaatay haye waa nin soo jabay oo soo kufay oo soo jabay oo soo kufay waa dhowr naagood soo guursaday waa soo kala tageen haye ninkaan ma ogolaan laydin ha iyo maya kadib wuxuu igu dhahay in intaas caruuraan leeyahay intaas xaasaan soo guursaday noloshana waa isku fahmi weynay sheekada saasay dhacday saas waay taas mi ahaa okay hadda naag baan leedahay maya naag malihi hadda oo waa kala tagnay tii iigu dambeysay hal sanaa kala maqanah markuu saas idhahay ani marka waxaan is dhahay waxaan calaf waaye hadday naaga kala tageen ilmana waa iska normal hadduuba ku guursanayo iska guurso isaga marka wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan ku guursado see u aragtaa hadda ay guursanaysa diyaar waay ninka gurigeena buu imaadayo waa la isoo doonayo waa la i guursadayo ani waxaan isleeyahay hadduu rabo ha xumaado hadduu rabo ha ku furo laakiin gurigaan le hal mar ka baxo yaan lagu dhihin wax guursanayo ma lahani meeshaanay fadhisaa inaa ilaahi wa inaa raajicuun waad yeeshay waan yeelayoo waxaan u yeelay hal mar le halagu guursado weli mala guursanin miya tii gabdhaha u weyneyd maa guriga weli joogta qof walbo imaada saasuu igu dhahaa hooyaday saana igu dhahdaa ani marka bareeshar iyo dhib iyo waxaan u arkay culays hadalkaas la igu dhahaa mindil igelina isku mid ay ii tahay acuudu billaahi min ashaytaan gabadhan go-aankaa ma ku saxsan tahay ha iyo maya mise waasan bacd ma ku saxsan tahay inay iska guursato haye iska guursa hadduu rabo ha xumaado hadduu kuu ficnaadan alxamdulilah hadduu xumaadona at least waa la guursaday oo waa la furay ha lagu dhaho ninka sidii aan ku guursadayoo ninka markii aan guursaday alxamdulilah waa wuxuuba ii noqdayba nin iska fiicano familkooda marka ayaga waa kasoo horjeesteen oo waxay dhaheen naagtan waa naag weyno maxaa ka guursanaysaa haddaa guursanaysa maa gabar yar gabarritid ani marka 35 kusii socdaaba oo 34 sanaa jira markaasoo asaga waxaa lagu dhahay naagtan oo weyn oo waqtigeeda qaadatay oo maxaa ka rabtaa u guursanaysaa gabar yaraan ku dhisaynaa oo familka ahoo gabar yar ahoo 15 sano jirto tan maxaa ka faa'iidaysaa adigaba hadday kaa weyneen adigayba kaa weyn tahay ayaa la daldalayaa marka familkooda si wuxuu dhahay ayadaan rabaayo waxay ahaataba anaa ku qaadanaya idinka iska dhaafa aniga waa la i guursaday oo sidii la ii waday familkiisa ayaa la ila dejiyey ninkii isaga familkiisu kula dejiyey familkiisu ila dejiyey haa wuxuu igu dhahay ani hooyaday gurigeeda intii naag aan soo guursaday dhammaantooda guriga hooyaday ayaan ku qabay hooyaday ma rabi meelna inaan uga tago gurigaas anigaa nin u ah marka meesha ayaan ku dejinaya kadib gurigii ayaa la ila dejiyey oo maamaday meeshiyaan degnay meeshii markii aan degnay ninkii waa ii fiicnaa oo maasha allahu ahaa oo nin iska fiicanoo gurigiis u roono kaali arag u ahaa hooyadii iyo walaalihiisa ayaa jooga gurigooda waxaa kaloo jooga 2 wiil oo asaga la dhalatay waxaa joogaan 2 gabdhood waxaa joogta hooyadiisa waxaa jooga aabihiis familka waa famil ballaaran waxaa dhacday ninkii isla joognayo gurigii aniga la igu dhaho guriga hooshiisa guriga adigaa lagaa qabaa qof walbo meesha uu joogo meesha uu jiifo waa inaa cunto ugu geysaa iyo biyahooda isdul saaran yaad u geynaysaa feerka familka oo dhan qof walba gurigiisa ayaa cuntada ugu geynaysaa oo gurigan dhan mas-uuliyadiisa aday ku saaran tahay lagu dhahay adigoo misis fuqay barreya maamadii oo wiilka hooyadiisa igu dhahayso inaa lilaahi wa inaa raajicuun ma ogolaan lahaydeen qof kasta qolkaad cuntada ugu geynaysaa waxaa ma ogolaan lahaydeen ilaahi idin ku dhaariyey qof kasta cuntadiisa ayaa u geynaysaa oo hablaa ku jiro oo wiilalaa ku jiro oo ayagii dhammaan guriga waxay jooga cuntada adaa karinaayo dharkooda adaa dhaqaayo wax walba guriga laga qabanayo adaa qabanayo kadib waxaa la igu dhahay hooshaada saasay u wadataa hooshaada saas waaye ee hooshaada ha gabin abay aniga waa iska ogolaaday oo cuntada waa iska kariyaa oo cunto karin iyo waxaas dhib maba ku qabiyo ilaaha soo baray oo cuntadii aan kariyaa oo dadkii waxay rabaan waa u geeyaa qof walba markii aan cuntada kariyo waa u geeyaa dhib maba ku qabinba dadka cuntada waa u geysaaba cuntada waa kariyaa oo gabdhahana waa u geeyaa oo wiilashana waa u geeyaa oo asagana waa u geeyaa oo kulli waa u wada geeyaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله هاي markii dambe adi cabaar markii aan joogay guriga oo ku dhawaad 1 sano ayaa guriga joogayo intaas ay caayitamta bahdilaad xoogaa cuntada marka aan kariyo waxay u dhahaan waxaan cunto miya intee wax ku soo karin jirtay baadiima joogi jirtay cuntadii aan kariyo ayaa wax laga sheegaya hay gabadhan waa raaliyo soo wada qora dhamaan waa qisadii Mrs. Kafour ee raaliyo waxaan ku weydiinayaa markaa isagu ma military wahaa mise boolis asaga military ahaa nooca dalaayadaha ku booda military wuxuu ahaa ciidamada cirka ahaa adiga ma heesi jirtay markaa saan u heesayn waa raabi jiray oo asagana kabankuu ii garaaci jiray
waxaa dhacday ninkii hal sano guriga inaan joognay oo ay igu dhahaan naagtan awlaanba ogeyn oo waqtigeed inay soo qaadatay oo wax ma dhalayso oo meel ubadka soo socda meeshaan ma ahanoo waxba ma soo wada in laygu dhaho maamadii ay igu dhahayso mar walba wax maa leedahay uur maa leedahay haddana bareesharay waxay iiga dhigeen uur maa leedahay ninkii wuxuu igu dhahaa ina ilmo ilaahay isiiyo alxamdulilah ilmo waa haystaayo ilmo iyo waxaas ha isku shidaynino hadduu ilaahayna siiyo alxamdulilah hadduu ilaahayna siin waayona alxamdulilah wax mushkila e maba lahanba laakiin familkia waxay leeyihiin naagti ma dhash xitaa marmararka qaar anoo maqlaayo oo guri kale ku jira waxaa laleeyahay tii aawe magaceygi xitaa laygumuucahay tii aawe ma aqaano meeshaanay joogta qolkeeday ku jirtaa umalayn mararka qaar waxay dhahayn ilaahay mida ku dhaaray guriga ma sii joogi leydeen tii aawe maca magacaagii lagu yeedhay ma sii joogi leydeen marka maxaa adiga kugu kalifina gurigaa sii joogtay marka wallaahi maadaama gurigeen aan ku soo weynaadayo intaas oo dhan wax i guursada aan iskaga samir tii aawe sii lii dhahay markii dambe waxayba ii bedeleen ma dhashaday waxba ma dhalayso meeshaanay taagan tahay waa naga soo horbood qumayo waaye siday noo soo gashay balaayana daba kacday oo kasanaana yeel oo saanaa noqonay oo ilaahay keenayoo guriga mar wiilkeeda oo labadeeda wiil intay israaceen baawur ay raaceen oo baawur intay shil ku galeen oo ay ugu dhaheen qumaydaana gurigeena imaadayoo balaayayba noola imaaday wallaahi gurigii aad baan u dhibsadayoo markii laileeyahay waxba ma dhalayso oo guriga anoo ku jiro maamada mararka qaar maamooyina u imaada waxay dhahaan gabadhaas wadanka u aheyd wax ma dhashay maxay dhalaysaa waa mid ani ila eke maxay dhali kartaaba tan sore walaalo waxan baa ku nasab kuma helina ana ila eg tahay maxay dhalaysaa waa ogtihiin wax ma dhalin unbay jirkeeda isku haystaa moogiye ana ila eg tahay ileedahay oo markaa mise jir baad dhashay jir maad hayn 34 aan jiraa ha waa 34 jir qof weynba maahay maxay ku weynaysiinayaan 34 jir oo Soomaaliya waagii hore waa waxa la dhihi jiray waa ka dhamaatay imse dumarka kaga dhamaataa marka yani dumarka waxaa aaminsanahay 50 inay kaga dhamaato maxaa kuma harin marka haya fiican baa ii hareedo ilaahay wax igu siiyee kadib afartan min kaga dhamaataa soo qoraya dadku ama 40 mid dumarka kaga dhamaataa waxa 40 kagama dhamaatay 50 ay kaga dhamaataa dumarka inta badan qofkiiba caafimaad qabo oo jirkiisa is haysto oo dhisan yahay 50 wuu dhali karaa oo mid 40 qaara 60 ku dhalaba maxay tahay 40 ka sheegaysiin mid 40 jirtaan isla ku qabay show waxba kadib waxaa bilaabatay guriga in pressure badan la isaaro oo rafaad badan silac markii dambe waxaan ku dhahay walaalow aniga waxaan ku dhahay waxaan rabaa waxaa pressure badan ay fuulayo mar walba caytin magacayga xitaa leegu wacaynin respect la ii haynin guriga la iga jecleen qof macnaha guriga ka tirsan leela dhaqbaynin si qaab daro badan dhinacaan u exda maba laham si fiican leegalama dhaqmaa xitaa inaan soo dhexgalo oo la sheekaysto si qurux badan oo si farxad leh markaan guriga agtooda soo istaago ama agtooda imaadaba qof walba uu isbedelaya say u sheekaysanaan u qoslaan u faraxsan yihiin marka ani u imaado oo meeshooda usoo dhawaada waaba la isbedelaya joobiga dhanba waa isbedela waa la sirxiraa sheekada waaba la damiyo aniga waxaan bilaabay inaan hoosheeda qabsado oo hoosheeda markaan dhamaysto kadibna guriga qolka aan iskaga xaroodo aan iska soo xiro marka qolka ka dhex ooyaa walaalo qolkaan iskaga dhex ooyaa oo wax aan samaynayo ma laha ninkii waxaan ku dhahay walaalow meeshaan naga wado naga guuri oo nageey maxaa la dhahay meel kale subxaanallah bal maskiin taariikh waxa ku dhacay ilaahay inuu ku dhaariy ka waran wuxuu igu dhahay hooyaday ma rabo inaan ka guuro hooyadayna kama guuraayo ee meeshaada joog gurigan waa gurigaaga guri kale kuuma hayo marka dambe anigoo rafaadsan oo sida aan yeelaayo ma ahan ma aqaano marka dambe isagu ma kuu fiicay isagu ninka ma kuu fiicay marka ninka nafsad ahaantiisa wuu ii fiican yahay oo wax dhiba kuma qabo oo subaxdii uu baxaa oo qof shaqaysanayo waa subaxdii shaqo aada oo duhurkii u imaada wuu qadeeyaa wuu tukadaa wuu laabtaa kadib habeenkii u imaada dadka aan guriga iskula noolnahay oo maanta dhan isla joogno waa dadka familkiisana wax meel walba waxaa waaye waa dad iska xirxiran oo nooc kale ayaga dhan oo igu faraxsaneen oo kadibna aniga guriga markii waxaanba noqdayba qof keligeed iska ahoo marna shaqo ku jirto marna qolka iskaga oyso asaga naftirkiisa ma ahan qof oo waqti badan isiinayo oo waqti badan ila joogayo waa qof iska maqan haddii aan dhaho hooyada iyo walaalahaaga waxaan igu sameeyey qof oo ogolaanayo ama qaadanayo maba ahan marka dambe wuxuu igu dhahay gurigan guri aan ahayn kuuma hayo aniga gurigan guri ahayn kuuma hayo marka uu iga dhahay kadib aniga waan iska samray oo gurigan iska sii joogay maalimaha kamid anigoo jikada ku jiro jikada jooga wiil walaalkiisa asaga ka yar wiil walaalkiisa ka yar ayaa guriga joogayo oo dhalinyarada hadda soo baxday wuxuu igu dhahay
waxaan rabaa inaa ii samaysid ukun buu ii keensaday ukun oo qurac bay aheedo wuxuu igu dhahay ukuntaanaa rabaa inaa ii dubtid markaasaa ukuntii aan kasoo qaadayo ukuntii anigoo soo wada dhexda aan kasoo wadaba waa jikadiis baaquligii aan waday ayaa iga dhacay baaquligii markuu dhacay ukuntii waa jajabtay ukuntii markay jabtay aniga asagayaan usoo laabtay waxaan ku dhahay aniga lacag ma haysti marka qof asagana lacag ima siiyo oo lacagna layma siiyo markaas ukuntana guriga ma wada taalo ma ogtahay Soomaali markii la joogo waa inaad soo qabtaa oo ninka biilba kuma siiyo ninka biils xaqo iga siinay gurigaan aan ka tirsanayay waxaas aan karinayaan cunaayo gurigaan shaqaale aan ka ahay adigu qaniyo qolkaas iyo cunto karin bis intaas waay hay wariyaasho hablo way wanaagsan yihiin sanadkan balmidan xaafadeeda dhax dhigay hay waa bil aan waa kadib ukuntii baa dhulka iga dhacday oo jajabtay laba xab ukun un bay ahayd kadib aan usoo laabtay waxaan ku dhahay dhulkana waa ku daadatay ukuntii waa jabtay oo anaa maamada kaaga qaadayo ukun oo isi saab igu dhihi kartaa ukuntii oo wiilkii feer ii soo duubtay kadib waa i kala tutuuray oo wuxuu igu dhahay saa u duub ukunteeda u jijibin kartaa ma kasaa u yeelaysaa inaa ii karisada diidan tahay wax maamadii soo baxdayo ayadan qaylo meeshaan la istaagtay waxaan ku dhahay ukunta baaquli aan ku fadayo waa iga dhacdayo dhulkay ku dhacday waa jabtayo laba xab ukun waaye markuu asaga imaadana ka qaaday lacagtiita si oo waa idin soo gadaya markaas ay igu dhaaday yaa lacagta ka qaadaysa guriga aabaha baa ka keenaysa mis guriga hooyada ninka aad leedahay waan ka qaadaya ma ogtahay inaan cunugeyga inuu yahay wiilkeyga ma gurigiina ka keenaysa lacagta markaana leedahay asagaan ka qaadaya tayd itiis waa isku mid xaasidnimo u jibis ka anigii waa markii aan ka yaabay markuu imaaday duurkii marka waxaan ku dhahay ani noloshan kuma sii jiri karo laba xaba ukun oo iga jabtay aan waxaan dhahay walaalkaaga intuu qolkeyga agtiisa iga keenayo waxaan ku dhahay uu ikala tuurayo hooyadaana markay soo baxday intuu wiilka iga celin laheeday waxay igu dhahday ma guriga aabahada ka keenaysaa lacagta ukunta ku iibinaysa markaasaan ku dhahay ani gurigaan ma sii joogi karo oo haddii aad rabtid mustaqbalkeena in nolosheen inay sii dhisnaato meeshaan iga wata oo guri kale hal qol xitaa ha noqde nadaji ani adiga noo gaar ah markaas way ku dhahay ani meel kale kuma dejin karo meeshaan meel ahayn kuuma hayo haddii aad meeshaan rabin aan ku qanacsaneenna aday ku taala kadib ani guriga waan kasoo carooday oo waa soo baxay guriga hooyaday imaaday guriga hooyaday markaa imaaday waxaan ku dhahay ninkii isku soo dhacnayo xoogaa saas baa laygu sameeyey hooyaday waxay leedahay gurigaaga iska joog waxaas dadka dhan waa soo mareen annaga dhan waa soo marnay oo gurigaaga iska dhaqo aniga runtii waxay igu noqotay culays inaan guriga ku laabto oo guri aniga kasoo tagay waxaan sugay atleast waxaan isdhahay markii lagaa daba imaado xoogaa lagu raaligeliyo oo haddaa ku laabadnaysin saas la ugu laabo kadib guriga imaaday oo wax iga soo dababaxaba waa waay cid ku tiraada ka maanta wada weeye cid tiraahdo xagee aada iyo sababtaa u baxday ma lahan shib aa la wada galay kadibna hal bilaa ii dhammaatay oo gurigii aan joogay asagan isoo wicin familkoodan isoo wicin qof ii imaadayna jirin oo waxay igu dhaheen aabahey wuxuu igu dhahay haddii dadka aa kasoo tagtay xitaa salaamu calaykum gabadha xaaladeeda sidee way maba soo dhahin markaasaan ku dhahay iskaga aamusa idinka hadday ayaga aamusan yihiin markaasuu igu dhahay si uga aamusayna aniga gurigeena joogtaa gurigaasaan kugu ogeen inay ku dhigeen iyo inay ku dhaqdaan labadaas mid inaan ka ogaado waa inaan waca intaan waxaa isdhahay ayagaa kusoo wacay laakiin hadday isoo wici waayeen inaan aniga waca waay aabaheyga wuu wacay wuxuu ku dhahay gabadhii inta imaadayo inta inaa ii imaadido kolleyba hadal kasoo baxa waxay id usoo baxday aan sugaayo laakiin wax isoo wac maba arkine maxaa jiro oo maxaa qaldan waatuu ku dhahay ninkii gabadhaada waxay usoo baxday ma ogi wax laga soo haleeyna ma lahan wax loo dhimana ma lahan aabaheyga u dhahay markaad adoo waxba laga haleyn sababtaa usoo baxday maxay tahay markaasaan ku dhahay nis wax badan baa layga haleeyo dhaqankaasaa laigu hay anna kuma sabri karin intaas ka badan gurigan naga guuri oo guri kale nadajiyaan dhahay isagana wuu iga diiday anigana waa iskaga soo tagaan dhahay gurigaas marka aabaheyga oo idhahayo gurigaa iskaga laabo oo iskaga samiro idhahayaba ninkii naagaaba loo guuriyo qolkii aan kasoo baxay dalaq la soo siiyey naag markii loo soo guuriyey oo gurigii la geeyey gabar yaraa lagu daray oo familkooda ah gabar yar familkooda markii lagu daray kadib ani waa maqlay markaa maqlay ninkii aan ku dhahay marka hadday aa guursatay anigana xaggee igu ogtahay gabar kaloo iska guursada kadib waxaan ku dhahay gabar kale waaba guursatay anigana xaggee igu ogtahay markaasuu igu dhahay markii horeba adigaa baxay adigoo ifiirinaya adigaa baxay haddana meesha aad joogtay la iska sii joog